kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta jariiradda qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah mas'uul ka tirsan dowladda Kenya oo sacad qarsoodi ah ku yimid gudaha Soomaaliya lana kulmay mid ka mid ah mucaaradka dowladda madaxweyne Lafta Green oo cadeeyay mowqifkiisa doorashada 2020 kana hor yimid qorshaha farmaajo iyo arrimo qarsoona oo banaanka u soo baxay ahlu sunna oo shaaca ka qaaday magacyada iyo qabiilada 20 xildhibaan ee ku metelaya baarlamaanka Galmudug nin heesta dhalashada dalka Masar oo fal laga nax ka geystay gudaha dalka kadibna ka dhoofay garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo arintaas oo isqabqabsi ka dhex abuurtay golaha shacabka kulankii maanta ee golaha shacabka oo baaqday iyo xildhibaanada oo helay fariimo kala duwan qodobada dibaddana waxaan idin haynaa 5 qof oo dil loogu xukumay dilkii wariye Jamaal Khashoggi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wararkeena ku daawan doontaan inta aan gudagelin ka hor faahfaahinta wararkeena waxaa naga xasuusinaa fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay rukumo oo gambalaalka furo si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay halkan aan ku soo gudbino haatan aan ku bilowno faahfaahinta wararkeena taliyaha guud ee ciidamada difaaca Kenya General Samsom ayaa dalka Soomaaliya ku yimid safar qarsoodi ah isagoona booqasho ku tagay degmo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland General Samsom ayaa shalay booqday degmada Badhaadhe oo ay saldhig ku leeyihiin ciidanka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM sidoo kale Samsom ayaa ciidamada Kenya ee ku sugan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ugu hambalyeeyay sanadka cusub ee 2020 oo maalmo kooban naga xigaan isagoo la hadlayay ciidanka Kenya ayuu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya oo weeraro culus ay ka geystaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab taliyaha guud ee ciidamada difaaca Kenya ayaa shaaciyay in ciidankooda inta ay ku sugan yihiin Soomaaliya ay la kulmeen weeraro xooggan kuwaas oo kaga yimid dhanka al-shabaab isla markaasna lagu gaarsiiyay ciidanka Kenya khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac wali ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ay uga hadlayaan safarkan qarsoodiga ah ee uu dalka ku yimid taliyaha guud ee ciidamada difaaca Kenya General Samsom qaybihii hore ee jariiradda media ayaa daawanaysaan kulankii maanta ee golaha shacabka ayaa baaqday iyadoo xildhibaanada ay heleen fariimo kala duwan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah waxaa lagu waday in kulankooda caadiga ah ay ku yeeshaan xarunta Villa Hargeysa hase yeeshee waa uu baaqday xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay waxaa loo diray 3 fariin oo kala duwan kuwaas oo ku aadanaa ajendaha kulanka maanta ay yeelan lahaayeen fariinta koowaad ee xildhibaanada loo diray ayaa waxaa lagu sheegay in maanta oo ah 23 bisha December ee sanadka sii dhamaanayo uu jiro kulan isla markaasna ajendihiisu uu yahay u codaynta hindisa sharciyeedka maareynta iyo maamulka maaliyadda u codaynta hindisa sharciyeedka shirkadaha iyo akhriska saddexaad ee hindisa sharciyeedka doorashooyinka sidoo kale fariinta labaad ee u soo dhacday xildhibaanada golaha shacabka ayaa u qorneed sida tan mudane xildhibaan raali ahaw akhriska saddexaad ee hindisa sharciyeedka doorashooyinka cilad farsamo awgeed waa laga saaray ajendaha berri ugu dambeyntii xildhibaanada golaha shacabka ayaa fariinta saddexaad ee loo soo diray waxaa lagu wargeliyay in gebi ahaanba uu baaqday kulankii ay yeelan lahaayeen maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 23 bisha December ee sanadka sii dhamaanaya jariiradda media ayaa daawanaysaan nin ajnabi ah oo u dhashay dalka Masar oo dhawaan dharbaaxa u geystay gabar Soomaaliyeed ayaa lagu waramayaa inuu ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in dalka uu dhawaan ka baxsaday nin ajnabi ah oo dharbaaxay gabar Soomaaliyeed ninkaas ayaa waxa ay wasiiradu sheegtay inuu ka mid ahaa dhaqaatiirta isbitaalka Masaarida una dhashay
dalkaasi Masar, hase yeeshee maalin cad uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. iyadoo hadal ka jeedinaysay kulankii golaha shacabka ayay sheegtay in ninkaas markii shaqaalaha isbitaalka loo diiday lacag ay lahaayeen in la siiyo, sidaasina uu ku dharbaaxay gabar Soomaaliyeed. sidoo kale ninkaas ayay wasiiradu sheegtay in la xiray markii uu dharbaaxay gabadha Soomaaliyeed, hase yeeshee damiin lagu sii daayay, sidaasina uu dalka uga ambabaxay. ugu dambeyntii xildhibaanada golaha shacabka ayay ka codsatay inay ansixiyaan sharciga mihnadlayaasha caafimaadka oo ay ku jiraan qodobo xakamaynayo sida dhakhaatiirta caafimaadka ajaanibta ah dalka uga howlgelayaan. qaybihii dhexe ee jiradda mid ayaa daawanaysaan. hoggaanka ahlusunna ayaa shaaca ka qaaday magacyada iyo qabiilada 20 xildhibaan ee ahlusunna ku metelaya baarlamaanka Galmudug. hoggaanka ahlusunna wal jameeca ayaa shaacisay liiska 20 xubnood ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ka siisay baarlamaanka cusub ee loo xulayo dowlad goboleedka Galmudug. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa lagu soo bandhigay magacyada 20 xubnood kuwaas oo ka soo gelaya baarlamaanka Galmudug dhinaca ahlusunna iyo beelaha ay ka soo kala jeedaan. warqadda ayaa la rumaysan yahay inay ahlusunna u dirtay beesha caalamka, waxayna guddiga doorashada Galmudug jiradda media u xaqiijiyeen in aan weli xafiiskooda la soo gaarsiin liiskan. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan si rasmi ah u xaqiijisay in ahlusunna u ogolaatay 20 ka mid ah xildhibaanada Galmudug, iyadoo la filayo inuu ra'iisul wasaare Khayre tago magaalada Dhuusamareeb si loo adkeeyo heshiiskaas. qaybihii dambe ee wararka jiradda media daawanaysaan. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen ayaa cadeeyay mowqifkiisa doorashada 2020 isagoona ka hor yimid qorshaha madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo u waramayay TV-ga Somali Cable ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee lagu wado inay dalka ka dhacaan sanadka 2020 iyo 2021. Laftagreen ayaa sheegay in ka maamul ahaan uu aaminsan yahay in doorasho qof iyo cod ah aysan xilligan dalka ka dhici karin, taasoo beddelkeedu uu doonayo in dib loogu noqdo nidaamka 4.5. waxa uu sheegay inaysan suurtagal ahayn in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ilaa inta laga samaynayo tirakoob guud, sidoo kalena la xoreynayo deegaanada ka maqan dowladda. madaxweyne Laftagreen ayaa ku taliyay in maamul goboleed walba deegaanadiisa lagu soo doorto xubnaha ku metelaya dowladda dhexe, iyadoo loo marayo nidaamkii hore ee 4.5 kaas oo lagu soo dhisay dowladdan. mar waxa laga weydiiyay inuu jeclaan lahaa waqti kororsi loo sameeyo hay'adaha dowladda ayaa waxa uu sheegay inuusan marnaba aqbalayn muddo kororsi cidna u ogolaan doonin. hadalka Laftagreen ayaa dharbaaxo weyn ku ah qorshaha Farmaajo uu ku doonayay inuu ku qabto doorasho qof iyo cod ah. ra'iisul wasaare Khayre, dhammaan madaxda maamul goboleedyada, inta badan xildhibaanada iyo afhayeenka golaha shacabka ayaa sidoo kale qaba in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah. haatana qodobada dibadda. maxkamad ku taalo dalka Sacuudiga ayaa 5 qof dil ugu xukuntay dilkii Jamaal Khashoggi. 5 qof ayaa dil loogu xukumay dilkii wariye Jamaal Khashoggi, hase yeeshee 2 qof ee ugu sareeyay dadkii loo baarayay dilka ayaa dambi lagu waayay. waxaa sidaas Isniinta sheegay dacwadoogaha guud ee Sacuudi Carabiya. Jamaal Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ayaa waxaa la dilay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 iyadoo Riyaad ay dilkiisa ku sheegtay howlgal ay fuliyeen kooxo fallaaga ah. 59 jirkaas oo ahaa nin wax badan ka ogaa boqortooyada balse markii dambe isu rogay mid dhaleeceeya ayaa waxa qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku dhex dilay 15 nin oo Sacuudiyaan ah, kuwaas oo kadibna jarjaray meydkiisa sida ay sheegeen saraakiisha Turkiga. ilaa hadda lama helin haraadiga jirka Khashoggi. waxaan ogaanay in dilka Khashoggi uusan ahayn mid horey loo sii qorsheeyay. waxaa sidaas yiri ku-xigeenka dacwadoogaha guud ee Sacuudiga Shalaan al-Shalaan oo shir jiraayad qabtay. dacwadoogayaasha Sacuudiga waxay sheegeen
in ku-xigeenka madaxa sirdoonka Axmed Al-Azir uu madax u ahaa kooxda dilka fulisay isla markaasuna uu sidaas kula taliyay la taliyaha warbaahinta boqortooyada Sacuudi Al-Qahti. si kastaba Al-Qahtani ayaa baaritaan lagu sameeyay balse dacwad laguma soo oogin sababo la xiriira cadeymo ku filan oo la waayay. sidoo kale Asir ayaa la baaray laguna soo oogay dacwado balse dembiga lagu waayay kadib markii isna cadeymo lagu waayay. waxaa sidaas lagu yiri bayaan ka soo baxay dacwadoogaha. labada nin ayaa ka mid ahaa dadka aadka ugu dhow dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, waxaana shaqada laga eriyay kadib dilkii wariye Jamaal Khashoggi. guud ahaan saaxiibayaal waxaa halkaas nooga dhan wararkii aad ka daawanayseen Jareeda Media. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe sara channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay.